بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بعد الجلسية لمانتين به ميل كسته وأد شوكتان كسر وهذا متكم إذا برنامج هذا ديجان كراديو هرجيسة تضبط كان هدي بقدره برنامج كديجان ك وعني كجاه اللي دونا رباب كهديرت كعرتي بدي بقول الله الضلكة سيدا إنه الله وضع صعنا وحتى تبادي وجودن بيه جودهم بهالضلكة أما أنتي سبدان بكده أيه رباب لجو قبو سدي kuwaasoo meelaha qaar ka geystay isla markaana sababay daadad xoog leh inkastoo waxyeelo ballaaran aanay jirin marka laga tago hal qof oo ku geeriyooday mid ka mid ah dooxyada u dhaxeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. haddaba barnaamijka toddobaadkan waxaan isku dul istaagi doonaa roobabkaasi iyo kuwa la filayo toddobaadyada soo socday lidaan iyo dabcan sidoo kale qorshaha dawladda hoose ee la xiriira sidii ay uga taxadiri lahayd amaba se bulshada ay uga wacyigelin lahayd hadiiba roobkaasi ay waxyeelo ka dhalan karaan. cali maxamed nuur dheereeye oo ah madaxa maareynta xafiiska maareynta iyo khataraha ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaana barnaamijka marti noogu ah. cali iyo soo dhow. waa tahay ugu horreyntii cali waxaan jeclaan lahaa in aad nooga waranto saadaasha dhinaca roobka marka laga hadlayo magaalada Hargeysa. bismillaahir rahmaanir rahiim. walaalo waqtiyadan sideen loo socono isbedel guud baa ka jira cimilada adduunka oo dhan taas ayuun baana sababtay iyaduna inaynu qayb ka nahay isbedelka oo waqtiyadan December iyo November lagu jiray inaan roobab marka laga tago kuwan xagaaga ma deertay maartay soo baaqda in ay daan laakiin waxa weeyaan isbedelka cimilada qayb ka mid ah marka waxa dhacda in roobab kuwii hore aynu ogeyn ka awood badan oo ka dhibic badan oo aan time lahayn inaynu aragno oo ay sameeyaan fatahaado oo ay ku sameeyaan goobaha dooxyada iyo biyo mareenada iyo guud ahaan isku socodkayna xanibaan marka waxa weeyaan waa roobab aad u waaweyn oo qadarkooguna badan yahay oo aan xad lahayn oo imika saadaashu soo sheegayso bisha October ilaa December oo kale waa joogto waana wax nagu cusub oo alaab waqtiyadan oo kale may dhici jirin oo waxa isbedeliyadana ku yimiday in habeenkii qabow saayid inuu yimaado oo aad u saayidayso oo kii roobka uu wadan jiray mid ka daran maalintiina inay kula noqoto marka waxa weeyaan waxyaalo badan oo dabeecado badan bay keenaysaa oo aan hore u jirin. waa tahay dawladda hoose haddii aad tihiin xafiiska arrintaa u qaabilsana waa tihiine bal waxaad ka warantaa sidee xogaha arrintan la xidhiidha ka dawladda hoose ahaanaad u heshaa. horta wal adduunka maanta wuu isbedelay dee waxa lagu xisaabtamaa waxa waa satellite-yada caalamiga ah kuwaas xogta laga helaa marka satellite badan oo ku xidhanahay dee inta badanna waaba iyagu free u badan laakiin xogta si 7 maalmood iyo week iyo wixii ka badan ku siin karaan iyo xogga accurate saxda ay ku siin karaan wax jira dee satellite aan iibsano oo aan xogtooda maarsi aan helo marka kuwaas aan ka helaa weekii saadaasha macnaha roobka taasoo ah qiyaastii inta ku dii karo boqolkiiba مثلا boqolkii weekend marka soo socdo kale waxay laga yaabaa inay badan tahay roobka dii kara ayo boqolkiiba 78 boqolkiiba 80 boqolkiiba 65 ay sheegayso marka satellite sanu ka helaa wixii ilaahay ugu talagalay iyo awoodiisuna meel bay taalaa laakiin aqoontan ilaa hadda maanta la bartay waxay alaaba inta badan saas u dhacda oo dawaa wax maartay ay xog lagu heli karo lagu kala socon karo. waata inta badan hay'adahan gudaha ee wadanka ka shaqeeya arrimahan qaabilsan haddii noqon lahayd xarunta saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha iyo haddii noqon lahayd in xarunta saadaasha hawada ee hay'adda diyaargarowga afooyinka dabiiciga ee kaydka raashinka qaranka iyaga wada shaqeyntiin waa sidee. wallahi wada shaqeynteedu waa fiican tahay oo xog badan baan ka helaa wasaaradda qolada Narfordna imika dawaaba bilow oo cusub tahay laakiin waxa loo baahan yahay wax ka sii ballaaran baa loo baahan yahay oo ilaa heer meel walba waxa jira gudiyo aan abuurnay oo heer degmo ah oo gobolka Muqdisho hoos yimaada oo tijaaba oo imika aanu sameynay oo iyaga laftoodu maartay wixii hadba soo kordhay ay soo gudbin karaan
oo matala saadaashu waa labo midna waa kan uu qalabku sheegayo midna dadkeenaaba dee saadaasha saadaaliyo iyagaaba yaqaanaba ama dabayshu cabirkay tahay ama xaggay ka socoto ama waqtiyadii hore iyagoo sanadkan iyo sanadkii hore ama sanadkan iyo 10 sano ka hor u eegaya ayaaba iyaga laftoodu saadaasha ay inta badanna ay waynu ku soo noolaynu ku soo kornaya marka wasaaradahana xidhiidh fiican baan wada leenahay laakiin kolley iyo kale haddana waxa loo baahan yahay intaa inka ballaaran in la sameeyo waxaata igad lafteedu waxaa ka ragabtoo jirta iyaduna xaruntan airportka oo kale in iyaguna beys ay ku rakibeen oo xagga saadaasha hawada marka kolley kaa laftiisana anagoo xog ka doonan doonaa intan in ka badanba waynu u baahannahay maanta adduunku wuu isbedelay sidii hore uu ka tegey waa xogtaa maanta ilbiriqsi isku bedelaysa dabaylahan ama ka soo kici karaa dee khilaafka yimid kuleel iyo qabow maaragtay oo kale ka soo kici karaa badahan oo maaragtay sababa in roobo badan ama meelaha qaarkood imaka tan yeman ka dhacday oo kale oo haddii inta cumaan ka soo kacday toos maaragtay yeman marka jasiiradahaas qadara iyo meelahaas xoogaa marka waa saacaddiina waxay ku socotaa wax aynaan garanayn oo aada u badan laakiin kuwaasoo kalaa iman kara marka waxaan u baahannahay in xog intan ka ballaaran oo maaragtay nidaamka saadaasha hawada somaliland noqdo mid ballaaran oo gobollada dalka oo dhan degmooyinka tuulooyinka isku wada xidhan noqdo insha allahu biidni illahi kala weyn heli doonaa waata marka xogta la xidhiidha dhinaca saadaashaad heshaan sidee u dabaqdaan ama uga go-aan qaadataan waxaan ugu go-aan qaadanaa waxaway anagu shaqooyin baanu wadnaa waddooyin baanu dhisaynaa intaa waxa socdaa xamuul baa gaadiidka qaadaya dooxyada laga tallaabayaa degmooyinkii isku socodkaa jira marka waxaasoo dhan waxaanu xogta waxaanu ka helnaa satellaadyada markaanu helno ayaanu u isticmaalnaa in aanu wacyigelin ka siino iyaga iyo bulshadaba si maarata shaqadaasina aanay u khasaarin dadka isku socodka meelaha halistaana aanu wax uga qaban karno waa tahay dadka xogaha arrintaa la xidhiidha sidee ula wadaagtaan ama jid noociyaa u martaan dadka inay xogta gaarsiisaan si ay uga digtoonaadaan haddiiba ay xaaladuhu daran yihiin horta tan waa laba qaybooda midna waxa weeyaan waa mid aanu idaacadaha iyo maaragtay telefishinada iyo soo baraha bulshada u marino midna waa mid ay degmooyinku si joogtaa aan u wadno oo maxaa lagu yidhaahdaa maaragtay loo sheego bulshada oo hore inta gawaari microphone saaran yihiin oo dowladda hoose leedahay in looga sheego oo degmooyinku maadaama degmooyinka caasimaddu ay yihiin degmooyin maanta isku filan oo waxay uga dhammaystiran yihiin in ay si fudud ugu sheegi karaan bulshada oo degmo waliba waxay leedahay xad iyo xuduud bay leedahay marka meelaha khatar ka yimaadaanna way taqaano in maaragtay si fudud ay u gaarsiin karaan oo dadka loo gaarsiin karo midda kale waxaa jira guddiya iyaguna jira oo heer degmaa guddiyahaasaan iyaguna farinta farnaaya si ay u gaarsiiyaan maaragtay ama maamulkooda ama communityda xaafada ama meelaha khatartu ka timaado alaaba waa tahay hargeyso kale markaynu ka hadlayno goobahee ugu badan oo marka xaaladahan lagu jiro kale la odhan karaa khatara ka iman karaya waxay tahay in laga digtoonaado waxa ugu horeeya waxa weeyaan walaalo waa horta way badan yihiin oo imika hargeysa way weynaatay waa caasimadii qaranka oo dad ciidda ka badan baa meel walba kusoo hoyanaya waddadii way nuglaanaysaa way isbedelaysaa gaadiid baa maraya aan loogu talagelin ka badan meelaha ugu badan waxaa ka mid ah wadooxyada magaalada hargeysa sideed degmo waxay leeyihiin ama 9 degmo waxay leeyihiin xuduuday leeyihiin oo doox wuxuu u dheereeyay bari iyo galbeed marka qolna waa waqooyiga xigtaa qolna koonfurta xigtaa marka dooxu waxaa jira saynu ognahay dee barishadeennu imika kuwa socda mooyaane kuwa kale waxa weeyaan maxaa lagu yidhahdaa barijo weli aan dhisnayn baa jira waxaa ka mid a halkan beerta xorriyadda oo kale shiraaqla dhibarkiisaa ka mid a waxaa ka mid a halkan saldhigga nuuya hargeysaa ka mid a waxaa ka mid a xaraf baa ka mid a marka meelahaasoo kale waa meelaha maarata roobku markuu marayo oo sanadkii horeba rabdaanta uu ku dhintay wiil maaragtay isagoo waqtiga gelin dambe ka tallaabaya macalgaariga qaaday marka halka dooxyadu waa ka mid waxaa ka mida meelaha lagu dhaha biimaranada oo dadku ay iyaguna dul degan yihiin ama ay maaragtay degayaan iyada oo ay si fudud degayaan waxaa ka mida maxaa lagu dhahdaa dabka ka mida waqtiga roobka markuu yimaado oo ka mida waxaa ka mida isku socodka gaadiidkan u baxa gobollada iyo degmooyinka markay magaalada ka baxayaan ayaa ka mid a maaragtay baabuurkii xoogu socda oo maaragtay waqtigii qadarkii socodka loogu talagalay taraafikada ugu talagashay maaragtay socodka dheerayna ku soconaya oo ku kala dabada ka gelaya oo maaragtay maadaama roob uu daayo waxaa ka mid a iyaguna biraha leerhka oo imika iyaguna wasaaradda komishinka tamartu ay gacanta ku hayaan beddelkoogii iyaguna kuwaasna dhibaatay ku hayaan waxaa kaloo iyaguna dhibaato ah maxaa lagu yidhaahdaa bahalkan lagu yidhaahdo birahanta beelaha oo dadku maaragtay kan xayska lagu sameeyo oo dadku adigoo nogeyn ay iskaga samaysanayaan maxaa lagu yidhahdaa
meelaha qaarkood kaasoo isaguna sababa mararka qaarkood waxaa ka mid a geedaha oo geedaha oo matalan imanka dee roobka markuu da'o ama dabayl buu leeyahay waqtigaasoo kale waxaa dhacda iyaduna inay timaado inay geedaha u dhacaan taas iyaduna caqabad keenta sometimes waan gartay waxaa jiroo kale shaqooyin in muddo aad ka wadeen dhinaca dhaamanka magaalooyinka ku yaala ama waxaan ujeedaa magaalada hargeysa ku yaala meelahaasna waxay ka mid yihiin goobaha khatarta marka laga hadlayo waqti roobaadka bal ka waran goobaha maxaa ka qabateen siiba jigjiga yar iyo daame goobaha walal waanu xidhnay waxaad ogtahay iminka sanadii ugu dambeeyey laba qof baa ku dhintay marka kan daame oo kale hargeysa labada ugu waaweyn waa kaas iyo waxa ugu weyn iyo kan jigjiga yar halkaa maslaha mid baa ku yaala sare halka maaragtay sare ee koobiso kameye xerada ciidanka hoosteeda isagana mid baa ku yaala kaana waa lagu dhintay kan maslahana waa lagu dhintay kan daamina waa lagu dhintay marka waxaanu samaynay qorshaanu keenay horta marka horena xidhno marka waanu xidhnay already ka jigjigeer iyo kan daamiba oo weligood hore loo xidhin labadaba ku guulaysano waa xidhnay si horta badbaadi dadku u timaado waxa kale oo aanu ka xidhnay iyagana caafimaad darro oo ka dhalata oo waqtiyada roobka ka dhalata taana waa ka xidhnay oo maaragtay iyo kanaaco ka dhalata iyo dadka oo disiisa guud u dhibaato uu weyn ku hayo taana waa ka xidhnay haddana waa nadiif waa xidhan yihiin waxaad deegaankii beedii deegaankaa kasoo noqotay dhar baa ka baxday shimbiraha soo degay aan hore u joogi jirin oo 24 saacadood jooga oo inaan horeba hargeysa qaarkood inaan u arag marka meel badbaadsan oo safe ah ayay hadda yihiin dadkiina ciyaalkiina ay maaragtay ka badbaadsan oo iyo dadkii waala oo iyaguna dhibaato badan u ku hayay dadba iyaguna dhar ku meerinaya jiray oo maaragtay si oo dadkaas cirtooda ku dhacaysa ama xanuun ka qaadaya ama xashiish kaga tegay marka deegaanka la ilaaliyaana waxyaalaha ugu horeeya waa kow marka dee wixii loogu talagalo la xidho la ilaaliyo isbedelas waa khasab marka tusaale 10 fiican ma ka qaadanay kuwa kalena saasaan ugu soconaa waxa kaloo iyaguna dhibaataa bahalahan lagu yiraahdo barkadaha iyaguna dadka tuulooyinka degan uga digayno iyaguna inay ka xidhnay oo taa ama iska oodaan haddii afnaan yihiin haddii maaragtay ay dheer tahayna inaan ciyaalka u dirin meelaha maaragtay oodoo kale iyo biyahoo kale waayo barkadu waxay leedahay salaamay leedahay salaamadas leelay marka ciyaalku kale si fudud bay ugu siibanayaan haddii islaan ku dabaasha ama wax ka soo dhaamiya waxaa jira iyaguna dee dhaamunkaa kale miyiga ku yaalla ee iyaguna waaweyn kuwaan waxaan uga digaynaa gobolka muqdisho hoos yimaado oo dhan iyaguna inay ka taxadiraan ummaduna oo maaragtay wixii aan oodnayna ay maaragtay aad looga taxadiro maamulada degmooyinka loo sheego waa tahay daami oo kale dad baa deganaa agagaarihiisa oo mararka qaar dhibaato kala kulmi jiray bal ka waran dadka maxaa laga yeelay horta walaal waxaa jirtay waxaan u sameynay almost 2019 markii uu maamulkan cusub yimid ayaan waxaan ku sameynay tirakoob maadaama dad ku dhinteen 2021 marka tirakoobkii aanu sameynay waxaanu xooga saarnay 100 qoys ee ugu dhow dhaamka marka 100 qoys markaan waan tirakoob baan ku sameynay xogtoodii markaan helay waxaan go'aansanay marka in 100 qoys laga raro meel nabadgelyo la dejiyo maadaama halis ku jiraan oo ay guryahooda iyo biyuhu iskaraacayeen marka meeshii waxaan u doonay mashruuc marka mashruuc caalami ah ku tartanay oo dawladda hoose Hargeysa ku tartantay oo caalami ah ayaan ku guuleysanay marka oo loogu talagalay dadiyowga maartay isbedelka cimilada saameyso ama meelaha u nugul maartay aafooyinka iyo khataraha la saahu u nugul dadka maartay loogu talagalay cimilada saameysan ay mashruuc ahaa adoon ku guuleysanay waanu helay waxa ku guuleysay caasimadda Hargeysa magaalada Nairobi Casablanca oo Morocco Itawantisk oo iyadana Rwanda meesha lagu yiraahdo Tanzania oo Dar es Salaam marka mashruuci waxaan ugu talagalay inaanu meeshii 100 qoys kaga rarno oo nu dejino marka waxaan dejinay magaalada degmada Macalin Haarun baan dejinay meel uga badbaadsan dhulay leeyihiin shingidooga waa dhisnay sharcigiiba la siinayaa waa dad nool oo si caadi u nool oo maartay aan dadkii hore la madayn marka mashruuc la faa'iidooyin badan baa ugu jiray oo lacag yar bishii la siinayaa ugu jira waxa ugu jira maartay in waxay ku shaqeystaan qalabiyada ku shaqeystaan in la siiyo oo mashruuca ugu jiray oo mootooyin yar yar ay ka mid yihiin
stiil cabdicasiisow maanta dadkaasi uga faa'iideen mashruuca waxaanu 10 qofuna ka soo xullay ayaan hadda shaqa abuuris maaragtay organisationkeena shaqa abuur shaqa doon oo kale uu naga caawiyey marka 10 qof ayaa imika hadda la baraa sida maaragtay waiter loo noqdo ama mudalab loo noqdo sida bunka makiinad bunka looga shaqeeyo oo maaragtay ay ugu shaqaysan karaan inamadii maanta waxaan noo farxaday inay maanta inamadii trainingkii ku jiraan oo shaqadii gacanta ku hayaan marka mashruuc meeshii waxaanu ka dhignay meel xidhan oo boqol qoysaskii deganaan aynu ka rarnay oo nadiifa oo maaragtay badbaadsan maanta waan gartay marka qorshaha intan ku xiga muxuu yahay doonaysaan in goobaha ama dhaamamka uga faa'iidaysataan haddii kan daami noqon lahayd iyo haddii ka jijiga noqon lahayd iyo kuwa kaleba wallaahi walaal waxa weeyaan waxaan ugu talagalay horta meeshan inaanu ka dhigno meel ay meelaha lagu meelahan goobaha lagu nasto oo hargeysa leedahay waayo waa meeshu waa meel aad u weyn weeye space weyn weeye in si aanu dadka jaararka u sii dhowna aanu halligaad kale u keenin haddii biyo badan bay yimaadaan in maaragta aanu ka dhigno meesha meel goob dalxiis oo lagu nasto oo ballaadhan oo hargeysa leedahay oo dhammaan leh adeegyadii loogu talagalay ee standardka caalamiga oo dhan tanna waxaanu doonaynaa in mashruucan oo kale mashruuc aad u ballaaran weeyaan marka in ay dowladda hoose hargeysa fuliso haddii ilaahay ogolaado oo really waxa weeyaan imkaaniyaadkii hadda oo loogu talagalo dhan u dhammaystiran waana goob ay leedahay dowladda hoose hargeysa iyo dadka reer hargeysa maaha meel la siin doono dad kale inta kuwii hore laga raray ku kale la siin doonna maaha eriyadiina ciduu soo dhowaan mayso waxaana weeyaan maxaa lagu idhahdaa goob quruxdeeda iyo neecawdooda iyo maaragtay ka qayb qaadan doontaa isbeddelka cimilada ee hargeysa khaasadan degmada gacanlibax waa in meel kastoo cabdicasoo la dhiraya meel kastoo la dhiraya way ka caafimaad badanta meelaha kale marka waxaan ugu talagalay meeshaas in goobo fara badan oo ciyaalku ay ku nastaan meelihii ay maaragtay madaxda ku kulmi jirtay madax haddii inoo timaado oo kale lagu qaabil lahaa oo lagu soo dhoweyn lahaa oo maaragtay gooba ciyaalku ku dabaashaan garoomo ciyaalku iska leeyin ku ciyaaraan looga dhigo oo maaragtay ku nastaan oo uga sahlan kuwii hore ee maaragtay dee dhibta ka soo gaari jirtay wada siigida hayda ma garanaysaa meelo dadka waaweyn ay ku lugeeyaan oo almost kilometer dushii sare ku wareegi karaan oo qofkii naafadaha uu ku socon karo qofkii oo ordayay dooni sportka dhalinyarta uu ku carari karo kii maaragtay isagoo lugeynayo ku lugeyn karo oo imika beerta xorriyaddan haysanaa laakiin meel kasii ballaadhan oo inoo soo kordhay bay noqon doontaa haddii ilaahay ka dhigo qorsheygana sanadkan kule waa la gelaya idamka ilaahay waa tahay waxyaabaha caanka ka hargeysa markaynu ka hadlayna waxaa ka mid ah in marka roobku da-ayo oo kale dadka qaar ay daadka soo raaciyaan qashinka horta arrintaas ma istaagtay mise weli way socotaa wallaahi horta arrintaasi niyahow horta waa imtixaan arrintaasi way jirtaa weli meelaha qaarkood oo ka soo gooday dadkii waxaa loogu taagi lahay waa shirkaddan idinka qaadaysa qashinka lacagta bishii siinayso dee ama haddii khasaalad dhimatay tahay ama tallaaga dhimatay ama furaashka hooye ay tahay ama caw ka saar marka meelaha qaarkood dadku isku wada mid maaha meelaha qaarkood weli ka jirtaa waana dabeecad aada u dhib badan waxaana ay xanibaysaa maaragtay biyo mareenadii waxay xanibaysaa dooxii weynaa waxay xanibaysaa ciiddii iyo biyihii ka dhalin lahaa maxaa lagu yidhaahdaa dhulkaas ayay xanibaysaa hadhow biyo fudud ama biyo dhow laga helaa waayo doox hargeysa imika haddaad tagto haddaad saw qodato biyood gaadhaysaa gacanteedu gaadhaysaa mar kastoo dhagaxa iyo ciidda dooxo ama ciiddu ay taallo oo ay badantana biyo way maneen laakiin marka furaash iyo caw iyo maxaa lagu yidhahdaa shamac ay galaan waad kaanaysaa waxaa kale dhibaato ku tahay beeraleydii waqooyiga ama ka xigtay ama bariga ka xigtay deegaamada hargeysa dhibaato iyo caqabado weyn bay ku taho waxa weeye wax soo saarkii dhib bay ku keenaysaa deegaankiina waa kharibaysa oo halkaasi maaragtay meelihii kale marka arrintaas waa arrin aada u dhib badan waxaanan u sheegaynaa oonu dadka aan ugu celcelinaynaa inay ka daayaan waay biyo mareenkii markiiba xidhmaya biyo dushay marayaan dabeeto ama ciid buu qabanaya ama ood buu isagana u keenaya dad baa waxaa jira oodaay gogoyin raacinaya oo gurigiisa hortiisa uga gooyay waxaa ka daran taayaradu ay raacinayaan iyadana degmooyinkuna shaqo adag bay hadda ka hayaan
cidda banjarlayaasha ku yaalla magaalada hargeysa oo iyagu inta badan loo tiriyo iyo dad iyagu sidooda usoo raaciya howlo badan baa markaa imarka degmooyinku ay xoogga saaraan oy la socdaan dhaqdhaqaaqooga taana haddii hore loogu dulqaadan jirna dib loogu dulqaadan maayo waana lagu ganaaxi doonaa cidda lagu arko ama shicib ha noqoto ama ganacsada ha noqoto ama qof kaloo dee maaragtay aan ganacsadahayn xaafad wax ka soo ha noqoto waxa kaloo iyadana aanu halkaa uga sheegaynaa dadku inay taayiradan inay ka faa'idaystaan ha ururiyaan banjarleesh ha ururiyaan degmada hal mar id ka soo doonaysa culaysidii kuma bahaba kharashyadii ka geli maayo qofkan kale ee isaguna wixii biyaha soo raacinaya wasakhda adiguna waxaanu kaa codsanaya inaad adiguna shirkadda kaa qaada inaad halkaa u dhigto haddii shirkaddu ay kaa qaadi weydo xafiiska degmada kuugu dhow la soo xidhiidh waanay ku khasbeen waanay qaadan waana shaqadooda waana runtii shirkado aad u wanaagsan oo maaragtay marka laga eego shaqadooda iyo karaankooga awoodooda iyada awooddeena qaranka oo dhammaad ay maaragtay aanay weli halkii loogu taglay meelaha qaarkood aanay gaareen laakiin haddana inta ilaa imka dabagal baanu ku hayna xoogan shirkad kasta kormeera ku qoran oo daba socda oo daba galo oo cagta u saara marka si ay wax looga qabto haddii ay diidaan maadaama dhibi nagu tahay inaad degmada la soo xidhiidh dhammaan ka codsana dadweynaha ay ka qaadi waayeen shirkadu haddiiba ay dhahdo waa tahay haddaynu xafiiskiina usoo laabanno waxay tihiin dowladda hoose ugu horreysay ee xafiis la xidhiidha arrimaha masiibooyinka sameeya bal maxay kula tahay faa'iido noociyya ayaa xafiiskan iyo samayntiisa laga dhaxlay xafiiskan waxaa la sameeyey 2021 December waxaana lagu sameeyey magaalada Berbera shirkii maayarada ururka maayarada Somaliland ay fadhiistaan oo gudoomiye ka yahay maayarka caasimaddu waxaa loogu talagalay laba degmaa la yidhaahdo ku tijaabino xafiisyadan maareynta khataraha oo xafiisyo u gooniya maadaama shaqadii ay ballaaran tahay adduunkina isbeddelkii cimiladan uu maanta soo badanayo oo isbeddel fara badan keenay marka waxa lagu tijaabiyey Burco iyo Hargeysa marka anagu si fiican baan ilaa hadda u shaqaynaa waxa aan maaragtay mashruuc cilmiga hadda ku sheegayo waxyaalaha aan ku faanay xafiis ahaan ay dawladda isku faanayso mashruuc caalami ah oo ay bixinayaan ama bixiyeen oo lagu tartamay oo hadiyad la isku siin oo ururka maayarada maaragtay golaha maayarada isku socodka maayarada adduunka u bixiyay oo tartan caalami ah oo intaasoo caasimadood oo afrikaana oo dee guuna oo naga weyn ay maxaa lagu yidhaahdaa ka qayb galeen in lagu tartamoon helo oo dee waa arrin aad iyo aad u muhiima waxaan intaan isku daynayna waa maaragtay waa badan yihiin oo waxyaalo badan oo geedkan garwaaga sidaan loo dagaalami lahayn una baroonka iyo gobolka Maroodijeex waxaa kaloo ka mid a maxaa lagu yidhaahdaa in aanu samayno in Hargeysa maanta inaanu idhaahno maayarka caasimadda oo maaragtay si bulshadu deegaamada degmooyinku ay u ogaadaan ama wax looga qabto ama loo yareeyo goobihii ay halis ka iman jirtaa wey in xog laga keeno oo aan xogtaas soo koobno oo aan degmadiina iyo maamulkii la wadaagno si wax looga qabto waayo magaalada Hargeysa meelaha qaarkood meelo buuray ku yaalaan degmooyinka qaarkood oo biyo toosa markiiba soo galaya dadkii dooxina u dhow yahay meelaha waxaa jira meelo daadku gooye markaaba oo shalay oo kale uu gooye roobkii daay oo hore loo ogeyn meelaha ay dee waxay kiimika yaalaan ee laga heli karo ama sida loo isticmaalay waxyaabo khaldan meelaha in xog la helo dhammaystiran oo wax laga qaban karo sideedaba khatarahan soo noqnoqda oo laba nooc oo ama dadku mid dad sameeya noqotay mid iska natural ha noqotay inagu teenan aad ku soo noqnoqota waa mid inagu aynu samaysano gacmeena ku samaysano marka sidii kuwa liis looga heli lahaa degmo waliba waxa dhibka jira loo ogaan lahaa si loo xiliyo marka waxaa loogu talagalay maareyntan khataraha waxa la sameeyaa waa la maalgeliyaa maalgelinteedu wax kale maaha macnaha maalgelintu waa in meelihii ay ka imanayaan khatartu in la dhiso in waxaan sabatan keenaya laga qabto laga ilaaliyo oo haddii biyuhu meel ka xidhnaayo meesha laga furo haddii biyo saayid meesha namar jira la ballaadhiyo haddii waxyaalo kaloo halis ay ahayd maaragta laga qabto marka waxa weeyaan maanta Hargeysa waxaan ognahay meel kasta oo khatar ka jirto oo soo korna halis baa ka jirta oo dhaamunkana ka mid yihiin oo dooxa weyn meeluhu ka soo jabo ka mid tahay oo dooxa weyn waxa weeyaan halkuu mar jirin Cabdicasiis maraya roobku ma yaqaan daadku ma yaqaan ciyaarta 60 halkuu mar jiray hadduu roob weyn maanta yimaado u maraya waayo roobkan Hargeysa ka daa kuwa ka badan baa dooxa soo mara
وقلبيدو كل روب وين كدايا وإننا نوجين بينه هل كانوا كدايا بيبدن بهرجي سنة كبها يديجان كي أنت كانوا كشبيان مركا قف كستوام اللي لدول دقي وخطر كسرن حكتي سوان ومركانو دي أساس من قيمة صوص من نون هنا دو حمله كتشابي كرا هلستا وان وجنه ميل هذا كدي جوان وشجنا waxa isku gaadiidka meelaha dooxa weyn waxa jirta qararkiisoo kale in dhinacyadoo kale ka qodmiyo marka iyagana waa ognahay oo sheeg marka adigu xafiiskan mas'uuliyadiisa waxa mid ah inaan xogtaa soo ururno oo la wadaagno marka si maamulka sidii wax looga qabto waa tahay ugu dambeyn gabagabadii baynu joognaa dhageystayaasha waan ka raali gelinaynaa in cilad xagga telefoonka ay jirto oo aad suurtagelin in muxuu ahaa ay nala soo xiriiraan marka ugu dambeyn cali maxay tahay fariintaada ugu dambaysa ee xaaladan imika xagga roobka la xiriiray bulshada gaarsiinaysa wal su'aal aad u qiimo badan ugu horeyn darwaliinta reer Hargeysa ee adiga iyo anigu baynu ka midnahay ama dhalinyarta ama nooc doona ma noqdaan waxaan u sheegaynaa waqti roobaadka in speedka gaariga ay dhimaan waa magaalada gudaheega in goobaha laga shaqeynayna sugaan waqtiga laga shaqeynayo in marka laga baxayo maxaa lagu yiraahdaa marka laga baxayo magaalada ee safarada dibadda loo baxayo in la yareeyo speedka ku soconayaan in roob maadaama da'ayo ama jiro in wadadu ay siibanayso wana sidii hore loo marjiraan ahayn in baabuurka ka horeeyo mar walba qadar cabirka traffic siiyo oo ugu yaraan 7 mitir ay tahay inaad ka dambayso in qashinka biyaha soo raacinayso hadda reer Hargeysa ka deysaan in aad gurigaaga iyo guriga ka soo horjeeda inta u dhaxaysa inaanad cid kale ku halayn adigu aad mas'uul iska saarto way jirtaa meel badan oo qof gurigiis intiisa ku koobnada laakiin gidaarnaad gaadho oo bilicda caasimada inaad geed gurigaaga ku hor beerto caafimaadkii iyo dabeecadii iyo biicadiiba wax ku soo kordhinaya adiguna had ku sameynaya inaad samayso adigoo wadada ku xadgudbayn waxa kale oo aan halkan uga faa'iideysanahay dadiyowga u dhow goobaha dooxyada iyo biyo mareennada waqtiga roobka inaad ka fogaataan oo aydan u dhawaanin haddii ay dhibaato ku soo xidhiidhan inaad trafikid iyo maxaa lagu yidhahdaa dibdemiska 991 iyo dowladda hoose 997 inaad degdeg ula soo xidhiidho inaad goobaha ay ku yaalaan geerashidu ee baabuurta waaweyn ee laga shaqeynaya inaad ka fogaato guryaha duuga inaad ka fogaato suuliyadii gaboobay inaanad gelin iska ilaaliso roobka waqti badan socdaa ma wato inaad iska ilaaliso taawarada dadka u dhow inay roob badan oo dabayl hadduu yimaado khatar bay keeni karaan biraha leyrka weli birta waana soo noqon doona tabeelahan xayisiiska waddooyinka yaalla inaad ka fogaato iyo kameeradaha hortooda ku yaalla intaba waayo waa gacan bini'aadam baa samaysa wuu dhici karaa markaan kaana ka digtoonaataan waqtiga roobku da'ayo inaad ka cabtaan goobaha biyaha wasaqda ah ama dhaamamka ah markuu roobku da'ayo waayo wax kastaa la socda biyuna may kala fadhiisan waqtigii loogu talagalina may gaadhin inaadan idka cabin biyaha dhaamamka iyo meelaha waddooyinka iyo inaad iska ilaaliso iyo jidhaamaha oo kale inaad iska ilaaliso inaad naftaada halis ku geliso leyd aanad garanayn inaad istiraado ka shaqeeyo birta leydhku waa dilaaga koowaad marka roobka bir roob waxaa laga yaabaa inay leedahay danab aad qabso istiraado haddii hoosteeda biyo fadhiyaan oo ciyaalku inta badan birta ku ciyaaran hoostoo godanta waxaa laga yaabaa inay danab leedahay oo shirkadii nimkuu ka sii guurayaanba birtii markaa inaad birtaana iska ilaaliso haddii waqtiga roobka gurigaaga adigoo ku jira uu shoo ka dhaco ama onkadku marka uu yimaado waxaa yimaado shood jagagac gurigaagii leyrka iska baktiya ha qayliyin ha ooyin cid kale adigoon doonan markaba leyrka baktiya shoorka inta kaaga filan waanta ugu horreynta marka u horreysa gurigaaga waxaad dhigataa haanta badbaadada dabka reer Hargeysa maanta waxaan u sheegayaa haanta badbaadada dabku inay dhowr nooc ilaa 5-6 nooc inay tahay mid waxaa jirta gurigaaga intaad dhigto haddii daba yimaada iyadoo ay isqarxinayso oo dambase noqonayso oo laga yaaba in dabka baktiso Hargeysa lagaaga iibinaya kuwii 3 iyo 4 nooc kala jira waa $50 $30 inta qiimayaasha u dhaxaysa ayaan jecelahay in eriyooyinkaati Hargeysa waa lagu iibiyaa waa bal Hargeysa reer Hargeysa ku soo iibso gurigaaga oo bakhaarkaaga dhigo oo stoorkaaga dhigo oo meheradaada dhigo oo gurigaaga dhigo talabaadan u soo jeediyay waxa weeye
baashan la dhahaa haantan cuntada lagu samaystay gaaska haantan horta wax dhib badan maaha dee faa'iidaynu ka helo waatan dhuxushii iyo deegaankii wax badan baynu kaga faa'iidnay haddaba muwaadin raggii ku hadleen dumarka markay soo iibsadaan ama kuwii horeba u yaalay shirkaddii la xidhiidh tababarna sii ku dheh ama se loo isticmaalay waraaq bay kusoo siinayaan sida loo isticmaalayo u isticmaal haantoo furan ha ka tegin quful gaarigaagu istaarama mid ka tagta cabdicasiisow tanna waa saasoo kale bakti markaad ka dhamaysto haddii aad dibadda dhigi karto dibadda geyso xadhig dheer soo tallaabo gurigaaga dhinacyar docda kasoo duulalaya oo samayn kartaa waxaad samaysaa inaad madbaha haddii dee aanad awoodeyn oo waxaaga iskuwada meel yihiin inaad xilliyadii la shidayey iyo waqtigii ilaaliso inaanad daaqadaha isku xidhan cunto marka ku samaynayso inaad daaqadaha ku xidhan albaabada inaad isku xidhan inaad intaba furto oo hawadaasho haddaba haddii ay kugu dhacdo oo dab yimaado sidii baashan kan cuntada lagu samaynayo dab ka yimaada inta badan iyo dab kama yimaado waa kan cuntada lagu samaynayo ha baqanin waa wax fudud ood samayn karayso haanta intaad qaado ha is oon dibadda geeyado on leys waa dembi adigaaba xataa waxaad saamayso wixii kale jaarka ama adaa ka mas-uul noqonay marka laakiin ama bisto ama maro qoyan ama maxaa lagu dhaha haantaa badbaadada dabka ayaa deg deg inta aad dabdamiska ilaaliso haddii aad xallin kari weydo oo uu dee dheeraado markiiba la xidhin minid ama laba minid hadduu dhaafo dhib iyo culays buu keenay adiga mar walba dabkaas mana control karays markaaba horta ogsoonow caloodeeg samee saad ku baktiin karaysa ee haantaas gurigaaga ku taallo ilaa carruurtaada ku tababarsa loo isticmaalo waqti bay leedahay waqtigeygana ka faa'iidayso oo la socdeen waa tahay qodob baan ku darayaa dhowr hal qodob kale qodob si waqtigu yar qodob baan ku daray waxa weeyaan waxaan lagu yidhaahdo kaalmaha shidaalka markaad gaarigaa ku shubanayso muwaadin ka bakti gaarigaaga bakti wax kastaa dhici kara booyadda shidaalku marka ku jirto ka taxadir shidaal ha shubin adiguna ha ku shuban qofkuu degdegayaa baa laga waa ruux aada iyagu shub laakiin adigaa sababta leh dhibtana adigaa leh inankana iyo inamada iibanaya iyo kuwa ka iibsanaya intiina waxaad ku dardaaraya inaad arrintaa ka taxdirtaan waa culays weyn dhib weyn bay keeni kartaa mahadsan cabdis waa tahay cali maxamed nuur dheereeye madaxa xafiiska maalinta khataraha ee dowladda hoose caasimadda hargeysa ayuu ahaa toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka deegaanka ee radio hargeysa oo aanu kaga hadlaynay roobabka la filayo toddobaadka soo socda in ay ka da-aan dalka oo dhan barnaamijkii intaas baan kusoo gabagabaynayna waxaan mahad celinaya maxamed jaamac igaal jarmal oo dhinaca farsamada ahaa soo saarista iyo soo jeedinta barnaamijkuna oo anigo cabdicasiis saciidiid cilmiya tan iyo kulantay dambe toddobaadka soo socda inta barnaamijkan dhigiya aynu dib marka lagu kulmi doono inta ka horreysa nabadgelyo deegaanka